qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo weliba ehelada mid ka mid ah maxaabiistii ay dhowaan maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ay ku xukuntay dil toogasho oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Laascaanood ayaa si kulul u cambaareeyay go'aankii ay maxkamaddu ka gaadhay iyadoo loo haysto maxbuuskaasi. odayaasha iyo ehelada Kaysa Axmed Aadan oo ah mid ka mid ah afar maxbuus oo ay maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso ay dhowaan ku riday xukun dil toogasho kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ka tirsan yahay xarakada Al-Shabaab ayaa waxay odayaashan iyo qoyska uu ka soo jeedo ay sheegeen in wiilkooda uusan wax luga ku lahayn iyadoo loo haysto, waxayna ka dalbadeen maamulka Puntland inuu si dhaqso ah uga laabto go'aanka ay ka gaadheen maxbuuskaasi. odayaasha oo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan: jaacsiyaad ay qabatay waxaanu u qabanay waxa bari ka socda ee ila furana uu ka wado ee ummadda isku dilayo ee marba wiil uu baabuur kala degayo ee uu ku magacaabayo waa shabaab. waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed maxamed harti wixii ku abtirsaday shabaab aniga halka ii saara madaxa meeshaad ku qabataanna ku googooye. haddaba ragga uu maxkamadiisa saaray Boosaasood ee uu yiri qoladaasi ka tirsan yihiin ee alla berbereeyo ma ahaanu leenahay shaqana kuma leh. sidaa darteed haddaanu meesha fadhinanahay waxaanu la qabnaa beelaha kale saxaafadda looga horeeyay ee wiilasha iyaguna wax ku magacooda wax ka soo jeedaan annagu isku wada qaadana wiilasha. waxaanu ka hadlaynaa waxa isagu uu sameeyo uu ku reebayo ummadda kale ninba nin ku bedelayo kuwa horaayna faroole naga hurda. dadkuna waa isyaqaan, dad wada dhashay baanu nahay, tol baanu nahay. maxamed harti walaalaanu nahay, isna reerkaasu ka dhashay. siiba reerka la yaa Ciise Maxamuud ee aanu dariska nahay ee walaalaha nahay isku jiro ee maalin walba wada taagan nahay. waray ogaada nin waliba in Cabdillah Xasan wuxuu gacan waliba waxay geysatay leedahay. gacan waliba waxay geysatay leedahay. waxaanu caalimka u sheegaynaa oo ka dhaadhicinaynaa oo tusaynaa arrimahaas oo beelihii shalay hadlay aanu la qabnaa inaanaan ka dulqaadanayn. raggaa uu isagu iska xirtay ee dilka ku xukumay ninba nin ku bedelayo maxkamadiisaan aan aqoonsanayn. dadku waa reer baa loo xisaabtamayaa. waxa isagu hoosta ku haysto lacagta uu doorashooyinka ku doonayo badaha looga shaqeeyaa Soomaalida oo dhan ka dhaxeeya. waxaanu caalimka u sheegaynaa inaanaan arrimaha ka dulqaadan. waxayna faroole samaynayo walaala ku noqon mayno, danana inaga dhaxayn maayaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wiilasha halkaa ku xiran sigar gorowdaasha ka hadleen shabaab ma isaga ku sheega shabaab oo caalamka u sheega oo yaada shabaab baan halkan ku hayaa. shabaab baa soo gurtay buu hoodle Laascaanood bay joogtaa halkan ay soo martaa galgalay gashaa waxba kama jiraan. waa wuxuu caalamka u sheego ka idaacaduhu sheegayeen oo idaacadaha ka sheegay oo yiri dil baan ku xukumay. dilkaasu inaanu ahayn sharciga uu wataa sharci nadiif oo xalaal oo kii dadka lagu leyn jiray oo ka dhaxeeya Soomaali weyn ama ka dhaxeeyaba hartiga ama ka dhaxeeya kitaabka Qur'aanka ah munassalka ah ahkaamta aan xusayn oo ah mid lagu ijaabto oo lagu siyaarto oo lagu shaqaysto oo been ah oo aan karmaha u joogo dhinacna u dhaafay. nimankaas halkaa uu ku xukumay nama khuseeyo. ninkaas nama xukumo, diin naguma xukumo, dadnimo naguma xukumo, tolnimo naguma xukumo, islaamnimo naguma xukumo. wax naga dhaxeeyaa ma jiraan. waxa uu dadka u yeerayaa ee dambiga ah ee u yeerayaa ee maanta ka dhigtay siyaasad been buu ka dhigtay siyaasad. shabaabka qaadul dariiqa argagixisada badcad bareeda budcada miyiga qolada ka taroolada dhigatay hadda adduun weynuhu iska badbaayay wuxuba waxa weeye
وفامليغا isagu ka dhashay dhexdooda ku jiraan meel kale ma jiraan Soomaali kale male Ahmed Saaki Farah telefishinka Royal la saaro